dalka Shiinaha oo bilaabay dagaal ka dhan ah cuntada hambada loo soo reebo. Xisbiga Shuuciga ah ee talada dalka Shiinaha ayaa bilaabay ololo loogu magac daray bileed nadiif ah, kaasoo ujeedadiisu tahay in la joojiyo cuntooyinka hambada ah ee la daadiyo. wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa sheegay in ololaha cusub ee xisbiga hanti wadaaggu uu yahay qorshe lagaga hortagay duruufaha saboolnimo ama cunto yaraanta ee ka dhalan kara hoos u dhac dhaqaale oo uu keeno fayraska corona. taasina ay keeni karta awoodda ay dowladdu u leedahay inay daboosho baahiyaha cuntada muwaadiniinta oo hoos u dhacda. meelaha ay dowladdu ololaha ka bilowday waxaa ka mid ah barnaamijyada telefishinada ee lagu tartamo cunto cunista, kuwaas oo ay sheegtay in ay dhiirigelinayaan in dadku ay cunto badan cunaan iyo in ay cuntooyin badan oo hamba ahi soo hadhaan. waxaa la filayaa in dowladdu ay hirgelin doonto barnaamijyo dabagal ah oo tiknoolajiyadda ku shaqaynaya si loola socdo xaddiga cuntada ay qoysaska iyo goobaha kala duwan ee cuntadu daadiyaan. qaar ka mid ah dugsiyada waxbarashaduna iyagoo siyaasaddaas fulinaya ayaa ay durba sheegeen in aanay aqbali doonin codsiyada deeqaha waxbarasho ee ka yimaada ardayda la ogaado in cuntada hambada ka soo noqoto qoysaskoodu ay gaadhay xaddigii la diidanaa. mid ka mid ah hodheelada cuntaduna waxa uu dhaqan geliyey barnaamij elektaroonig ah oo ku rakiban kadinka laga galo hodheelka. barnaamijkani qof kasta marka hodheelka soo gelaya ayaa uu miisaankiisa cabiraya, taas oo ah hab la doonaya in qofka laga niyad jabiyo inuu cunto badan dalbado. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo ka hadlayay cuntada dheeraadka ah ee la daadiya ayaa sheegay in dowladdu ay dagaal la geli doonto cuntada badan ee hambada ah, isagoo sheegay in xaalad murugo iyo amakaag ah ay gaadhay. madaxweyne Xi oo ka hadlayay ololaha cusub ee xakamaynta cunto qubista ayaa sheegay in muwaadiniinta Shiinaha looga baahan yahay inay ogaadaan in ay jirto dhibaato dhaqaale oo ka dhalan karta xanuunka COVID-19, sidaas awgeed laga rabo inay bartaan habab cusub oo ah dhowrtaysi iyo marxisashada cuntada, iyo in la abuuro caado bulsho oo ay cunto daadintu ceeb tahay marxisashaduna faan tahay. dowladda Shiinaha ayaa muddooyinkii u dambeeyey waday dadaalla ay doonaysa inay isku filnaanshiyo buuxa ka gaadho cuntada, taasoo ay kaga hortegaysa khalkhal kasta oo ku yimaada xiisadaha caalamiga ah ee sii kordhaya iyo xaaladda coronaviruska ee aan weli loo maaro helin. si kastaba ha ahaatee, baaqa cusub ee xukuumadda Shiinaha ayaa dadka dalkaasi ka dhex abuuray shaki ah inay jirto cabsi raashin yaraaneed oo ay dowladdu dareemayso. taas ayaana sababtay inay dowladdu dadka dib u dejiso una xaqiijiso in dalagga cuntada ee ay muddooyinkii u dambeeyey soo saarayeen beeraha Shiinuhu uu aad uga badan yahay intii hore. ololaha xeedho nadiif ah ee uu bilaabay madaxweyne Xi Jinping ayaa ka hor imanaya gebi ahaanba caadada cunto ee dalka Shiinaha ka soo jirtay kumanaanka sano oo ahayd in qofku uu dalbado cuntooyin kala duwan aadna u tiro badan, iyo in bileed kasta cunto lagu reeba ay tahay calaamad muujinaysa deeqsinimo iyo sarrayn. caadadan awgeed ayaa sanad kasta dalka Shiinaha la daadiyaa cunto lagu qiyaaso 17 ilaa 18 tan oo ah hambooyin dadku kibir u soo reebeen. xaddigaas oo haddii dadka loo qaybiyo sanad kasta ku filnaan lahaa 30 ilaa 50 milyan oo ruux, sida lagu ogaaday daraasad ay sameeyeen Akademiyadda Sayniska ee Shiinaha iyo Sanduuqa Caalamiga ah ee Deegaanku. hore ayaa ay dalka Shiinaha sidan oo kale u soo martay in la xakameeyo xaddiga cuntada ay dadku cunayaan. xilligii uu dalkaas hogaaminayay Mao Tse-tung ayaa uu soo saaray amar muwaadiniinta Shiinaha ku qasbaya inay 2 jeer oo keliya maalintii wax cunaan, 2 jeerna ay mid ahaato cabitaan ama cunto fudud. Marjaan Tube.